munaasabadan ay xilka kula kala wareegayeen wasiirka hore ee wasaaradda Arimaha Gudaha iyo dowladaha hoose ee Puntland mudane Axmed Kraash iyo wasiirka cusub ee uu dhawaan soo magacaabay madaxweynuhu mudane Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa saaka xilka kula kala wareegay wasaaradda Arimaha Gudaha iyo dowladaha hoose. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay duqa caasimadda Garowe, gudoomiyaasha degmooyinka, agaasimaha bangiga barasaabyada iyo munaasabadan ayaa waxaa looga hadlay waxqabadkii wasaaraddu muddadii uu xilka hayay wasiir Axmed Kraash iyo guulo badan laga gaaray. Wasiirka hore ee wasaaradda Arimaha Gudaha Axmed Kraash ayaa waxa uu mahadceliyay shaqaalaha waxaana uu ku amaanay inaysan suurtagal lahayn in qof kaligiis uusan qaban karin hawsha la qabtay muddadii wasaaraddu u joogay. waxaanu saaka halkan aynu isugu nimay wasaaradda Arimaha Gudaha oo loo soo magacaabay Cabdullaahi Cali Xirsi oo ibedelaya aniga. runtii waxaan ugu mahadcelinayaa shaqaalaha darajo kasta ha lahaadeen degmo iyo gobol ilaa tuulo ilaa wasaaradda. marka qof qori ma qaban karo ama koox qori ma qaban karto. wasiirka cusub ee wasaaradda Arimaha Gudaha iyo dowladaha hoose mudane Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa isna sheegay dhankiisa in shaqaalaha ay la shaqeeyaan. waxaan soo taagay inaan ilaaho wasiirkii wad mahadsantahay hore oo haddana noqday wasiirka duulista hawada iyo garoomada. waxaan codsanayaa in shaqaalaha iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobolada iyo intuba si fiican layla shaqeeyo. anigu waxaan jeclahay inaan wax soo kordhiyo nin shaqaan ah anigu askarina wixiisu waa shaqo waad laga yaabaa toddoba markay inaan soo fadhiisto halka haddii la yidhaahdo waana soo fadhiisanaya dhiganka waa irintu ka noqonaya hadda idin sheeg dalkani shaqo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay wax loo qabto waa la soo shaqeeyey waxbaad soo qabateen laakiin in la dadargi laba kaclayntii kacaanka baynu u baahnay inaan laba kaclayno dalka iyo dadkaan u shaqaynaya. inta aan wasaaradda joogana waxaan jeclahay hufraan iyo hawlkarnimo. wasiirkana waa ku mahadsan yahay shaqo fiican buu soo qabtay waa ku amaanaynaa. marka mana kala fogaanayno insha Allah. Axmed Kraash wixii tala ah iyo tusaalena uga baahano waa ka qaadanayna insha Allah. waad mahadsantihiin. ugu dambeynna waxaa si rasmi ah xilka loogu wareejiyay wasiirka cusub mudane Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade. Cabdi Shukuur Yaasiin Aadan, Cable TV Garowe.